رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. walaalayaal ciwaankeenan maanta wuxuu ka hadli doonaa dhanka iyo xukunka guurka, xukmu zawaaj. waa maxay xukunka guurka ee shareecada islaamka? al-umam almutaxida waxay soo saartay baaritaan su-aal isweydiiyey oo ahayd waa maxay waaye dadka ugu cimriga dheer adduunka. waxaa la soo saaray in dadka guursada oo mutasawijiinta ah ay yihiin dadka ugu cimriga dheer adduunka. sida cagsiga ee dadka ku dhex shaacsan ayaa waxa ay tahay in xaasku ay cimrigaaga gaabinayso. saas maahan. runtu waxay tahay gabadhu aad guursatay way ku cimri dheerinaysaa. waxaa la sheegaa in haweenaydu ay tahay afdalu cilaaj nafsiy ee ninka qaba oo leeyahay. gabadhana sidoo kaleeto ninka u ah afdalu cilaaj nafsiy. waxaa dhacday in sheekh asagoo joogo xaflad aroos asagoo ka sheekaya istibyaankan ay soo saartay qaramada midoobay asagoo sheegayo in adduunka dadka ugu cimriga dheer ay yihiin mutasawijiinta. waxaa la weydiiyey sheekha ka waran xaasaska badan 2-3 hadaa guursata ayadana cimrigayga ma isii dheeraynaysaa? waa maxay xukunka guurka? waxaa ka dhalata xukunka guurka walaalayaal axkaam 4 ah. guurku wuxuu noqdaa fardi xaaladaha qaar. haddii aan ku dhaho fardi waaye micnaheedu waxaa waaye qofka sameeyo ajir ayuu ku helaya waa yusaab. qofka ka tagana waa la ciqaabaya. salaada duhri waa fard. qofkii tukado waa la ajir siinaya. qofkii ka tago calayhi ismun dembi ayuu leeyahay waan lagu ciqaabaya. taas soonka ramadaan waa fardi. qofkii man saam ramadaan oo sooma ajiruu leeyahay. qofkii ka tagana waa lagu ciqaabaya. guurku xaaladaha qaar wuxuu noqdaa fardi. qofka sameeyaa ajir ayuu ku leeyahay. kan ka tagaana waa loo xisaabiyaa oo waa lagula xisaabtama waa lagu ciqaabayaa. guurka mararka qaarna walaalayaal wuxuu noqdaa sunno. qofkii sameeyaa ajir ayuu ku helayaa. kii ka tagana laa shaya caleyh wax lagu leeyahay ma leh. mararka qaar guurku wuxuu noqdaa makruuh. waa marka saddexaade. qofka sameeyaa wax lagu leeyahay ma lahan, laakiin qofka ka tagaa waa lagu abaalmarinaya kitaanka uu ka tagay. mararka qaarna guurku wuxuu noqdaa xaaraan. mararka qaar qofka guursadaa xaaraan ayuu ku dhacay. xaaraantana qofka sameeyaa waa la ciqaabayaa. kan ka tagana ajir ayuu ku helayaa. xaaladaha qaar wuxuu noqdaa guurku xaaraan. ma banaano in aad guursatid. mararka qaar haddaad ku jirta xaaladaha qaar inaad guursata maaha. haddaad guursatidna dembi ayaa ku dhacday. guurku wuxuu noqdaa fardi, wuxuu noqdaa sunno, wuxuu noqdaa xaaraan, wuxuu noqdaa makruuh. sidee u dhacdaa? qodobadaas 4 ee sida ay u dhacaan waa ciwaanka maanta aanu ka sheekayn doono haddii ilaahi subxaana wa tacaala oo kala noqdo. guurku wuxuu noqdaa walaalayaal mafruud. qof walba oo milkiya daaqa jasadiya wa maaliya. guurka u milkiya intaas daaqad jasadiya iyo maaliya. kadibna naftiisu ay hamuun qabato inuu guursado ugana cabsado xaaraan inuu ku dhaco haddii uusan guursan. intaas arrimaha 3 ee qofkii yeesha guurku qofkaas wuxuu ku noqonayaa shakhsi ahaantiisa farad. qofkii milkiye oo hubadii jasadiya oo jir ahaan maaliyad u yeeshay awood u yeeshay inuu guursado nin ha noqdo ama haweeney wuxuu qabaa baahi jireed ee guurka uu qabo. wuxuu qabaa qudra maaliya maal ahaan ayuu guursan karaa. kadibna naftiisu wuxuu u tuuqaysaa in oo xaas yeesho ama gabadhooda nin yeelata. naftiisiina wuxuu uga cabsanayaa haddana inuu ku dhaco xaaraan, inuu ku dhaco zina. qofkaas waxaa waajib ku ah in uu guursado. haddii uu guursadana wuxuu helayaa ajir aad u fara badan. haddii uu ku tago guurkana hadduu dhaho aniga guur ma u baahni waa iska baashaalaya idhaafa
haddii gabadhu ay dhahdo idhaafa aniga aan sii weynaado sii qurxanaado si fiican u sii weynaado gabadhaasu haddii lagu dhaho maxaa ku falaysaa gurigii ninkaaga guriga hooyadaa joogtaa iskaga raaxayso guriga hooyadaas gurigaas ee ka tagto guurkaas arrimahaasna ay milkiisa saddexda xaaraan ay ku dhacda gabadhaas maxaa yeelay gabadhaas guurku wuxuu ku yahay fardi ayuu ku yahay wiilkana guurkaas wuxuu ku yahay fardi milkiye saddexdaas ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka kariimka suurat an-nuur wuxuu ku leeyahay wa ankixu al-ayaama minkum ankixu يعني زوجوا أجورية الأيام ومن لا زوج لا قفك أن زوج كلهن ضبك في الصومالي أن قرآن ضبك أن زوج كلهن قبل أن لهن محل لاي نينك يويلك أن لهن حاسك أنت كواس هو أيم وأنكحوا الأيام منكم إلى حليم وأنكحوا الأيام منكم أجورية كواس والصالحين إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله أنكحوا ذان وفعل أمر قرآن كجروا ومصروف في الفرضية ما لم يصرفه صارف هذا الكاسن وحكو الصعداء أو كلمة ذات أنكحوا وحكو الصعداء ويلش أو أولياء ذا ويلش دالي أما قبل دالي ولي كست أو قبل ديس الشروطات سيرس وحكو واجب إنه أقوريو قبل ديس هدي أول ماضو محل الله قبل ويل أهبون إلهي سبحانه وتعالى وحلوه أنكحوا وقورية قبل هذا قوري ويلكي قوري مرك قار ولا واحد أركسها قبل محل الله سوشيال ميديا يوتيفي هذا الصديقة اللي ليه قبل أنه أنت هبل أنت سجرتا محل الله وحربتا ويل قور سدو أما أيضا الصديقة سبب ده سلمبركي واكاسا ده أنت سواء سوركي واكاسا وحاربا إنا قور سدو نيناربا gabadhaada guuri haday gaarto guur inta aadan ka arkin social media gabadhaada nin raadinaysa guursado dadka dhan ay arkayaan magacaaga iyo magacii gabadhaada raadinaysa zoojka hadalkaas ankixu wuxuu ku socdaa waalid kasta oo gabar dhalay waalid kasta oo wiil guurka gaaray dhalay hadalkaas wuxuu ku socdaa aghniyaa'ul muslimiin kuwa maxaa laay aghniyada ee muslimiinta walaalayaal guurku xaaladiisu waa adag yahay hadda wiil dhalinyarana ma awoodo ama gabar kale inay guursato ilaa in la caawiyo ma ogiye naadir waayo qof guursan karo kaligiis saas aan sameeyno kaalay aan caawina dadka guurka ku caawino ilaa tafcalu takun fitnatun fil ard waxa laga yaabaa maanta sadaqooyinka meelaha lagu baxsho meelaha ugu fiican inay tahay in lagu caawiyo dadka guurka wiilasha dhalinyarada guursanaya inay ku caawiso guurka maaliyan iyo wax walba caawimaad ay kaaga imaato ankixuu waa khidaab ku socdo hooyada aabaha wiilkoodii gabadhoodii u joogto guur gaartay waxa idinku waajibay inaad guurisiin wiilkiinan inaad guurisaan gabadhiinan ankixuu waa amar ku socdo kuwa walaayatul amriga ee hogaamiyayaasha ee madaxda wadanka ka inay dadka ku saacidaan ee guuriyaan ee guurka dadka ku kaalmiyaan maxaa yeelay mararka qaar guurku waa fardi rasuulka salaatu rabbi wasalaam alayhi wuxuu yidhi yaa macshara ashabaab من استطاع منكم الباءة باء ونفقات الزواج وقدرات الزواج قفكي أوذو وإذا كمده فليتزوج هقورسو فليتزوج لامك كجرو ولام الأمر لام الأمر صيغة سوى صيغة الأمر فليتزوج من استطاع منكم الباءة فليتزوج علماء قاروا وحدان قوركو واح أمر فرض وهلا سماء لكن بدنك علماء وحدان وصنع زوج قوركو مركا ويل كساس maxaa la naftiisi awood u leh naftiisa uu rabto guurka maxaa la xaraana ka cabsanayo wiilka ha u degdego guurka ilaahayna subxaanahu wa ta'ala shaki ma leh uu caawin doono oo ku kaalmeyn doono guurka ka warama midka naftiisu way u hamuun qabto guurka haddana aana awood u lahayn inuu guursado ka warama wiilka rabo ee jecel ee haminayo inuu guursado ee u hamuun qabo inuu guursado laakiin ma awoodo maal ma leh uu ku guursan karo ka warama gabadha maxaa laaye ajir fara badan inay hesho ayadoo rabto inay guursato rabto si ay ajirada aad ku fara badan hesho laakiin aabeed uu diidayo wiilasha soo doonayo amaba ay faqiirta urideeda la soo gargaraacaynin amaba wiilkan sidaas kale asagana oo faqiir yahay oo san awoodin inuu guri gargaraaco gabar doonto ilaahay subxaanahu wa ta'ala asagoo daaweynayo gabadhaas daaweynayo wiilkaas wuxuu yiri maxaa ku jiro maxaa la hadal wanaagsan ilaahay subxaanahu wa ta'ala aayaadkiisa maxuu yahay hadal qabow maxay ficnaan lahayd haddii carruurteenu dhalinyaradaynu qaataan kitaabka akhristaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala kitaabkiisa ku fakiraan ayagoo ilaahay subxaanahu wa ta'ala ateecayo
إلهي سبحانه وتعالى وحليه وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله هعبصن ويليو إلهي سبحانه وتعالى هذه مركز دور سنانتا إلى لسد إنك دور سناتد وأمرك إلهي أوه جانستد ومركز إلهي سبحانه وتعالى فرج كفر ومركز إلهي سبحانه وتعالى كعاوية وحا أبا هنتا إلهي سبحانه وتعالى كسي دوان hamiga ku hayso ka bixi doona guri ayaad yeelan doontaa xaas ayaad yeelan doontaa caruur ayaad yeelan doontaa maalintaas ayaad ku farxi doontaa sinta ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo ku siiyay laakiin adi dhowrsanaaw weliga dhowrsanaaw xadiiska aad xifdisantiin badankiin ee hadda aan soo dhaafin yaa macshar shabaab man istadaa'a minkum alba'ata falyatazawwaj wuxuu leeyahay sabab wuruud Abdullah ibn Mas'ud wuxuu leeyahay radiyallahu anhu waxaanu ahayn dhalinyaro aan waxba haysan wax maal aan haysan ma jirin fuqara ayaan ahayn waxa laga yaabaa in badan kan deganeen masjidka kunna shababan la najidu shay'a rasuulku sallallahu rabbi wasallam ayaa wuxuu nagu yiri ya ma'shar ash-shabab man istada'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahfadhu lil-farj wa man lam yastadi' la yamlik qofkaas awoodin naftiisuna u hamuun qabto inuu guursato ee aan guursan karin awoodinay فعليه بالصوم إنه له وجاء إلهي سبحانه وتعالى وعاون دونا فرجك علاسك السجرين فضاد وناق أيا كدن بين دون إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى وحوليه ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا أيضا خلنا مرة لوات كلها بناها لدمي إلى فيري أيضا ولا تكرهوا هكو قصبنين أو هكو عريرين أو هكو قصبنين فتياتكم على البغاء حمانتا هكو قصبنين على الروتين فتياتكم على البغاء ما لهلا يا آباء عقل له وناكسن وقبليس انت قعنت كسو قطبه على الزنا على البغاء كو قصباي وكو إكراهنا لا ما جرتو لكن وامح معناها آيات ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء هدي آبوه وكو عريري وكو أدكايو خاطبينتي قبلداس ويلش الصوت دونانايو gabadha wiilal badan u soo garaacaan guriga gabadha soo doonanayo oo ku adkeeyo oo la daba dhigto oo qaaliyeeyo meherka gabadhiisa intaas ayaga nimanka gabadha soo doonto oo idil way ka tagayaan gabadhana sidaas ay aan ku noqonaysaa aabaad marka wuxuu ugu cariiriyo oo ugu yeeray dhanka iyo aadida xaaraanta asaga ayaa ku qasbay gabadheeda in ay xaaraan gasho ay xaaraan ku dhacdo maxaa yeelay guurkii ayuu ku adkeeyay dadkii soo doonto ayuu ku adkeeyay Tirmidhi وحوليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم يا علي ثلاثا لا تؤخرها الصلاة إذا آنت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا جاءها كفؤ